haatana dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamijka bandhiga v o a oo toddobaadkan aan ku eegayno hakad ku imi meelaha qaara duulaanka ee dowladda soomaaliya ku haysay ururka al-shabaab iyo weliba saameynta uu ku yeelan karo dhulkii hore looga xoreeyey. falastiin axmed iimaan ayaa inoo haysa barnaamijkaas. bartamihii sanadkii hore waxaa qaybo ka mida soomaaliya ka socday dagaalada ka dhanka al-shabaab oo ay hormuud u ahaayeen dadka deegaanka. dagaaladaasi ayaa hakad uu ku yimid muddo ku dhow bil iyo bar. hakadkan ayaa waxa uu culays ku hayaa dadka deegaanka iyo ciidamada dagaalka kula jira al-shabaab. saraakiil waayo aragnimo ciidan leh ayaa v o a-da la wadaagay in ciidamadu ay heegan joogto ah ku jiraan, taana ay uga fiicnaan lahayd inay dagaal kula jiraan al-shabaab. furimaha ay dagaaladu ku istaageen waxaa ka mid ah deegaanada maamulada hirshabeelle iyo galmudug. xildhibaan maxamed cabdiqaadir maxamed waxa uu ka mid yahay golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya, sidoo kalena waxa uu waayo aragnimo u leeyahay howlaha ciidanka isagoo ka mid ahaa mas-uuliyiintii furumaha dagaalka tegay intii uu dagaalku socday. waxa aan weydiiyey culayska ay deegaanada shacabka is-abaabule iyo ciidankaba ay ku qabaan hakadkan. falastiin aad u mahadsan tahay. howlgallada mar walba ay hakadaan deegaanadii marka hore cadowga laga xoreeyey mar walba colays ayay u keenaysa, hadday ahaan layd hiiraan iyo hadday ahaan layd galmudugba iyo ama shabeellada dhexaba ama hirshabelle ama galmudug guud ahaan sidaasaana warku dhigan. colaysku waxay keenayaan marka koowaad waxay fursad u helayaan cadowga inay kasoo abaabulaan, waxay fursad u helayaan dhibaatooyinkii ku dhaca inay kasoo kabsadaan. mar walba ay fursad helaan xitaa saacad ha ahaatee cadowga waxay u tahay fursad weyn. marka culays baan dareemaynaa oo waxaan culays ku dareemaynaa waxay tahay deegaanadii baaxadda weynaay oo la xoreeyo cadowga laga xoreeyey ayay waxay ku barisgaraynayaan dadka inay haddana mar labaad ay soo laaban karaan, ayayna ma aragta cabsigelina way ku samaynayaan. meelaha qaarna waad aragtay hadda isbuucyadii lasoo dhaafay inay soo weerareen lagana guul helo dadka deegaanka iyo dowladda iskaashanayo laiska difaacay. sidoo kale deegaano ka mida gobolada galgaduud iyo mudug ayaa ka mida goobaha ay dagaaladu hakadka galeen, waxaana deegaanadan dul saaran ciidamo kala duwan, iyadoo ciidamadii deegaankana ay ku jiraan difaac habeen iyo maalin ah, sida uu sharxayo ku-samihii hore ee hay-adda nabad sugidda qaranka haddana ah xildhibaan kasoo jeeda deegaanadan ay dagaaladu ku istaageen ee galmudug, yaasiin cabdulaahi maxamuud. dhibaato weyn ayay ku keeni kartaa ciidamada qalabka sida iyo ciidamada deegaanka iyo guud ahaan dadka deegaanka. maxaa yeelay dagaalkan wuxuu uga duwan yahay dagaaladii hore in ay isgarabsanayaan ciidamadii deegaanka iyo ciidamadii qalabka sida. waxaan marka jiro in haddii mar walba oo dagaalku socdo in nimankaas ay jabayaan aysan awood u lahayn inay hor istaagaan ama ay waxyeelada ay iska difaacaan ciidamada qalabka sida iyo dadka deegaanku isgarabsanayo. haddii difaac loo galo difaacaas uu muddo dheeraado, waxa ka dhalan kara waxaa weeye in ciidamadu ay ku caajisaan, ay ku daalaan difaaca, kadibna cadowgu uu ka faa'iidaysto in dadka deegaanka iyaguna ay saameyn ku yeelanayso in dagaalku uusan socon, ciidamaduna ay ku sugan yihiin xarumaha hadda oo lagu sugan yahay. iyadan dhibaato weyn ayay ku tahay dadka deegaanka. waxaan rajaynaa marka in dagaalku uu sii socdo ayaa dan dadka deegaankana uga jirtaa, dowladdana ay uga jirtaa. dagaalkana waxaa keliya uu ka duwan yahay dagaaladii hore ee hore loo soo maray. waxaa weeye dagaal ay isku garabsanayaan ciidamadii qalabka sida iyo dadka deegaanka. marka waxaan leeyahay oo rajaynayaa in ay meesha laga saaro in ciidanku ay wakti dheer ay ku sugnaadaan difaacyo. maxaa yeelay ciidankana caqabaday ku tahay, dadka deegaankana caqabaday ku tahay, isla ciidamada qaybta ka ah howlgalka deegaankana dhibaatay ku tahay in uu difaacu uu dheeraado, ciidanku ay wakti badan ay difaac ku jiraan. kasakoo culayska uu hakadkani ku yimid dagaalkii ka dhankaha al-shabaab uu ku yeeshay deegaanka iyo ciidamadaba, sidoo kale waxay arrintani niyad jebinaysaa oo ay shaki gelinaysaa dadka deegaanada ay ciidamadani ku socdeen ee weli kusii haray gacanta al-shabaab, sida uu sharxayo xildhibaan maxamed cabdiqaadir. xogahan ka helena deegaanada loo socday iyo guud ahaan dagaalkaas in ummadda soomaaliyeed cadowgan la hor dhaafiyo qorshaheedu waxaan ka warhaynaa, maadaama anigu hadda aan ka mid ahay guddiga difaaca ee baarlamaankuna aan xubin ka ah.
talisyada iyo wasiirka iyo wasaaradda ay qusaysa arrimahaasna aan dhowr mar su-aalo ku weydiina dhammaan qorshaha dagaalkaasi in gacanta lagu hayo mar dhowna la bilaabi doono wejigiisa saddexaad. sidaas ayaan xogta ku haynaa ama ay noo sheegeen. guud ahaan deegaanadii la hayna hadda gacanta ayaa lagu haya in culeyska laga sii qaado mar walba howlgalka uu bilowdo. waxaa nafis ku helay deegaanadii markii hore la xoreeyay cadowgana uu kasii sakanaya, cadowgana fursad uma helay uu kusoo weeraray deegaanadii hore. kuwa hadda loo socdana dadka degan oo soomaaliyeed oo muwaadiniinta soomaaliyeed oo dhibaatada ku qaba cadowgana niyad ayay yeelanaysaa. laakiin haddii wax yaroo hakad u yimaado waxaa laga dhaadhicinayaa dadkii loo sheegayaa in maaragtay waxa marka hore la wadaba aysan ahayn wax caga badan ku taagnayn. marka moraal jabka ummadda soomaaliyeed ee ku moraal jabaysa howlgalka hakanayan in meesha laga saaro iyadana waa muhiim. laakiin qorshaha rasmiga wuxuu yahay inay dowladda qorshaheedu wadda isbuucyada soo socdana sidaan rajeynayo shaqada ay bilaaban doonto. al-shabaab oo inta badan door bida weerarada gaadmada ah ayaa waxay tani fursad u siinaysaa inay isku diyaariyaan weeraro kadis ah sida uu sharxaya xildhibaan yaasiin fare. iyagu caqabada keliya iyagu ay dareemi karaan ama dhibaatada ku aba waa dagaalku inuu socdo waayo. maxaa yeelay iyagu capacity awooday uga hortagaan awoodda baahsan ciidamada qaranka iyo dadka deegaanka ma lahan. laakiin inay ciidanku difaac ku jiraan oo ay iyaguna isku soo aruurayaan ay qaraxyo iyo ismidaamyaal iyo balaayo inay usoo abaabulaan iyaga way u sahlan tahay. waana inta keliya ee hadda ay intaan hadda howlgalka ku jirna aan aragnay ay sameeyeen. laakiin ma dhicin in ciidan iyo ciidanka xoogga dalka iyo dadka deegaanka isla socdo inay argagixisadu ay la dagaalamaan. maba dhicinba. mar walba waa meel walba uga baxaan. waxa kalifaya inay uga baxaanna ma lahan capacity awood ay uga hortagaan ciidamada qaranka. laakiin inay soo gaadaan oo ciidamada difaacyada ku jiro inay ciidamada caajisaan oo dadka deegaanku ay ku caajisaan oo dadka shacabku ay cabsi iyo walwal dareemaan. intaas keliya cadowga faa'iido ah. dowladda federaalka soomaaliya ayaa iyadu iska diiday in dagaaladu ay istaageen, waxayna sheegtay in muddadaasi bil iyo barka ah ku dhow ay qorshe ku maqan tahay dagaalka ka dhanka al-shabaabna lasii wadi doono sida uu sharxayo wasiirka gaashaandhigga soomaaliya cabdiqaadir maxamed nuur oo goor sii horreysay la hadlay v o e da. dagaalkii wuu socdaa, dadka soomaaliyeedna dagaalka iyagaa ka qayb qaatay, iyagaana maaragta dagaalka qayb ka mid ah hogaaminayey. sidii ayayna shacabka soomaaliyeed dareertii ugu jiraan. ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed iyo ciidamada guud ahaan qalabka sidana iyo maaragta ciidamada daraawiishta ee maamul goboleedyadana si toos ayay dagaalka ugu jiraan. laakiin haddee duruufaha jira dadka soomaaliyeed waxaa la rabaa inay fahmaan. marna waxaa maaragta lagu diriraya magaalooyin ayaa shabaabka laga xoreynayaa, marna kaymaha ayaa lagula dagaalamaya. haddeer shaqada socoto waa nadiifintii iyo in kaymaha laga saaro shabaab. saad la socoto toddobaadyadii lasoo dhaafay boqolaal khawaarija ayaa maaragta laga dilay shabaab. inta badanna wasaaradda warfaafinta iyo hay-adaha amniga gaar ahaan wasaaradda gaashaandhigu way soo gudbisaa jabka shabaabka khawaarijta ka gaara, furimaha ka gaara. marka waan aaminsanahay shacabka soomaaliyed waxay jeclaan lahaa in magaalo hebel oo weyn baa la qabtay, tuulo hebel oo weyn baa la qabtay. laakiin annaga ka ciidan ahaan labadaba isku mid ayay noo tahay in khawaarijta aan duurku kula dirirno oo aan meel magac lahayn kula dirirno, in meel magac lahayn lagula diriro oo laga saaro. intaba isku mid ayay noo tahay. dagaalkan wuu socdaa, maalmihii lasoo dhaafayna wuu socday, wuuna socon doonaa haddii ilaahay yidhaahdo. marka ugu dambaysana magaalooyinka dhiman ayaa isla gaari doonaa. shacabka soomaaliyeed ay dhegahooda yaqaanaan. wasiirka oo ka jawaabaya goorta dagaalada ay dib u bilaaban doonaan ayaa sidoo kale waxa uu yidhi. horeyn waan u sheegay, mar labaadna waan ku celinayaa. dowladda qorshe ayay leedahay, gaar ahaan wasaaradda gaashaandhigga qorshooyin ayay leedahay. qorshooyinkeedana idaacadaha lama wadaagto. laakiin waxaa xaqiiqo ah annaga bugco walba oo shabaab joogo oo dhul soomaaliyeeda hadaf ayuu noo yahay. labay mid tahay, ama xabaddaa ka socoto ama diyaargarowgaa ka socdo. marka sidaas daraaddeeda meelihii aan xabadi ka soconina diyaargarow ayaa ka socda. shaqadana weli way socotaa, mana dhowa. waxaan aaminsanahay goob walba oo shacab soomaaliyeed dhib ay khawaarij ku hayaan inta laga saarayo shabaab, ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed iyo guud ahaan ciidanka qaranka waxay u taagan yihiin inay diriraan habeen iyo maalin. mar
marka laga soo tago hakadka dagaalada ka dhanka al-shabaab iyo ciidamada deegaanada qaar difaaca uga jira waxaa intaasi sii dheer in xaalad bani-aadanimo ay ka taagan tahay deegaanada al-shabaabka laga xoreeyey oo aan weli haysan biyo nadiif ah, waxbarasho iyo daryeel caafimaad midna. deegaanada qaar ayaa waxaa usii dheer abaar iyo roob la-aan, waxaanay dowladda federaalka kaalmo weydiisata beesha caalamka si loo gargaaro deegaanada shabaabka ah laga xoreeyay oo ay ka taagan yihiin xaalad bani-aadanimo, sida v o a da uu sheegay wasiir dowlaha arrimaha dibadda cali maxamed cumar cali balcad. arrimahan xasilinta ama taakulaynta meelaha shabaabka laga xoreeyey dee waad fahmi kartaa. dhulka hadda la xoreeyey ee u badan waa hirshabelle iyo galmudug, waa degaano inta badan aan wadooyin lahayn oo inta badan kaalmayntooda ay ku xiran tahay dhinaca hawada, badankooduna aan garoomo lahayn. marka kaalmadii way socotaa oo de meeshii la gaarsiin karo waa la gaarsiiyaa, kuwa kalena waa lagu socdaa. dabcan dee weli waxaa socota mataqaanaa in meelaha qaarkood sifayn iyo mataqaanaa amnigooda aada loo sugo. marka howlahaasi dee waa howla waddankuna waa waddan aada u ballaaran oo marka laga bilaabo mataqaanaa ii sheeg dhinaca cadale ilaa iyo xardheer waa dhul aada u ballaaran oo dhinaca mataqaanaa dhinaca hiiraan la aado. marka waxaasoo dhan way socdaan, waana dardaran waa la gelin doonaa hadduu ilaa yidhaahdo. waddamo fara badan oo soo gurmado naga kaalmaynayna waa jiraan. dowladdu hadda waxay haysataa ciidan mushaar qaato oo ku filan, sidoo kalena waxaa dalka dib ugu soo laabtay 10,000 kun oo tababar kusoo qaatay dalka Eritrea. dhinaca kale dadka deegaanka ayaa u muuqda kuwo u heelan dagaalka, inkastoo aysan dowladdu bixin sabab rasmi ah oo dagaaladu ay u hakadeen. haddana xeeldheerayaasha ciidamada iyo dagaalkuba waxay qabaan in hakadkani fursad uu siinayo al-shabaab, dagaalkana uu sii dheeraynayo. intaas ayaanu kusoo gabagabaynaynaa dhegaystayaal barnaamijka bandhiga v o a. intaan mar kale dib u kulmi doonana nabadgelyo.